dadka laascaana degan dowladda Soomaaliya waxay u haysaa sympathy gaar ah maadaama calanka Soomaaliya ay wataan midnimadiina ay ku kulanti wacan idin ahaantiin daawadayaal meel kasta oo dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada qaaradda TV oo alaabad uga barateen wararkii u dambeeyay ee caalamka gaar ahaan nagayga Soomaalida qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah hadduu Rabbi idmo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si toos ah ugu dhawaaqay mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya kaga aadan arrimaha cakiran ee ka jira Sool Sanaag iyo Cayn waa ACC Khaatumo State waxaa sidoo kale uu ka dhawaajiyay madaxweynaha in lama huraan iyo muqadas ay tahay arinta xasaanada leh ee ka jirta Sool Sanaag iyo Cayn waxa uuna sheegay in hadafka ACC Khaatumo State uu hargeli doono isla markaana aysan jirin awood cid ku maquunin karta oo waa sida uu hadalka u dhigay ula jeeday Somaliland kuma dhiiran karto in awood ay ku maquuniso si ay uga simid ahaato Khaatumo State Somaliland isla madaxweynaha waxaa jirto arin baraha bulshada qabsatay 24 saac ee soo dhaafay arinkaasi oo ahayd in gabadh isaga u dhalay uu u magacaabay wasiir kadib markii uu ka eriyay nin halkaasi ku jiray waxayna arinka isaga ah dadka siyaasadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud dhaliilaha ay ku tilmaameen in ay tahay marxalad kale oo siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud ama tareenka uu markaasi isaga mas'uulka ka yahay u gadin karta dhinac khaldan ama dhinac xun iyadoo la og yahay in saami qaybsiga Soomaaliya uu ku qotomo 4.5 haddana in gabar isaga u dhalay uu nin uga eriyo beel ka soo jeeda dhan matalayo ay tahay arrimo maartay aad ay uga xumaadeen dadka isaga dhanka kale waxaan qodobadeena ku eegi doonaa xaaladda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo iyadana mid cakiran u muuqata kadib markii ciidamada Itoobiya waa militariga ay isku fidinayaan guud ahaanba gobolada dowladda deegaanka Soomaalida ay ka kooban tahay ayna ka geysteen khasaaro dhibaato aad u tiro badan jirdil iyo waliba dhaawacyo tiro badan ay ka geysteen dadna ay gacantoodaba ku baxeen kadib markii ciidamada Liu Booliska lagu dhawaaqay kala diristooda waxaa la dareemayaa ama shacabka reer marka dowladda deegaanku ay dareemayaan in culays kale uu soo fuulay qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaan halkan ku lafaguri doonaa daawada daqiiqadaha soo socda haddii ay tahay markii koowaad oo channelka anaga aragto nagu soo biiro channelka subscribe saar si aad nooga mid noqoto isla markaana noola janqaado una hesho warar xaqiiqada ku saleysan oo maalinla mahadsanid aanu ku horeynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaadkiisii haatan ku sii dhow yahay hal sano ayaa waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba arrimaha cakiran ee ka jira Sool Sanaag iyo Cayn ay tahay mid qusaysa dhammaan shakhsi walba oo Soomaaliya meel kasta oo adduunka uu ka joogo waxa uu ka cadeeyay mowqifkiisa ku aadan arrimahaasi iyo qorshaha ay doonayso dowladda federaalka in ay tallaabo kaga qaado arrinkaasi iyadoo la og yahay dowladda federaalka in ay ka gaabsatay arrimaha halkaasi ka jira oo dabcan sida ay hay'adaha xuquuqul insaanka sheegeen ay dhibaato weyn ka dhacday oo lagu xasuuqay dad rayid ah oo aad u tiro badan halka kumanaan kun oo qoys ay ka barakaceen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana madaxweynaha uu sheegay in dadka reer Khaatumo ay garab u yihiin isla markaasi isaga iyo xukuumaddiisa ayna ku taageerayaan wax walba oo taageero ay uga baahdaan dowladda dhexe ee Soomaaliya arrimahaasi oo dhan waxa uu ku aaneeyay in aysan jirin cid khasab ku haysan karta dad doonaya in mowqifkooda ay cadeystaan oo isla markaa iyada ana uu bointigaasi sal uga dhigay in ay doonayaan reer Khaatumo State in ay ka mid noqdaan dowladda federaalka ee Soomaaliya sababta ay dowladda federaalka go'aankaasi cad uga qaadatay waqti xaadirkan loo baahnaa in dowladda mowqifkeeda ku aadan arrimaha bini'aadanimo ee halkaasi ka jira ayaa waxa uu ku aaneeyay in reer Khaatumo State ay doonayaan isku soo noqosho iyo midnimo Soomaaliyeed halka Somaliland ay ku fikirayso ama ay doonayso kala ridista iyo waliba gooni isku taag muddo 42 sano ah ilaa haatan ay ku guuleysan waayeen ayna la gadgadoomayaan arrimahaasi iyo kuwa kale ayaa waxa uu ku aaneeyay madaxweynuhu in looga baahan yahay dowladda federaalka ama mowqifkeedu ay haatan ku cadeysay in ay taageerto Khaatumo State dadka ka soo jeeda Khaatumo State ama jaaliyadaha markaasi reer SSC ayaa meel walba oo adduunka ay ka joogaan arrinkaasi soo dhaweeyay kuna farxay una mahadceliyay madaxweynaha haatan xilka haya dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilli loo baahnaa ayuu cadeeyay mowqifkiisa waxayna soo dhaweeyeen arrinkaasi waxayna diyaar u yihiin ama iyaguba ay mar walba ku dagaalayaan ama ay sheegayaan isku soo noqoshaha Soomaaliya iyo Somaliland haddii macquul ay noqon
noqon weydo ama Somaliland dadka haatan hogaaminaya ay diidaan arrinkaasi in iyagu diyaar ay u yihiin in ay dib ugu soo noqdaan Soomaaliya kadib 32 sano ay wax la qaybsanayeen Somaliland oo ay u arkeen in dantoodu ay halkaasi ku jirta ayaa waxaad moodaa in haatan ay garaadada iyo dhammaan beelaha Sool Sanaag iyo Cayn ku dhaqan ay arrinkaasi ka soo noqdeen waxayna doonayaan in dib ay ula midoobaan koonfurta Soomaaliya oo markaasina in badan ay ku soo celceliyeen garaadada iyo dadka afhayeenada u ah Khaatumo State. dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin waxa mowqifka Xasan Sheekh Maxamuud uu haatan ugu soo hagaagay xilligan ayaa waxa ay tahay in ergadii uu diray ama odayaal dhaqameedyadii uu u diray magaalada Hargeysa si ay ula kulmaan madaxda ugu sarsareysa ay Somaliland in aan loo soo dhaweynin sidii loo baahnaa walow aysan jirin nin madax ah oo ka shaqeeya koonfurta ama siyaasadda koonfurtaba ku milan oo tagi kara magaalada Hargeysa waxa uu diray ergo odayaal dhaqameedya iyo ugaasyo salaadiin iskugu jira kuwaasi oo gebi ahaanba u gogol xaarayay in wada hadallo hirgala iyo waliba xal waara laga gaaro arrimaha Sool Sanaag iyo Cayn wuxuuna sheegay madaxweynuhu ama loo aaneeyay hadalkiisa haatan waxa ku soo beegay in gebi ahaanba odayaashaasi halkaasi loo diray ay farafiidooda ku soo baxsadeen ayna halkaas kala kulmeen wajigabax iyo soo dhaweyn xumo ay kala kulmeen maamulka Somaliland arrimahaasi oo isku tagtagay oo dhan ayaa waxa ay sababtay in dawladda federaalka Soomaaliya uu horkacayo Xasan Sheekh Maxamuud ay haatan mowqifkeeda ku aadan Sool Sanaag iyo Cayn ay si toos ah ugu taageerto Khaatumo State gobol yiraahdo. dhanka kale dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa Soomaali galbeed waxa ka jiray arrimo siyaasadeed oo cakiran waxaana moodaa in ay wajahayso xaalad kale kadib markii ciidamada liyu booliska si farsamaysan in loo kala dirayo la xaqiijiyay ayaa waxa bilowmay in ciidamada Itoobiyaanka ah ama militariga Itoobiya ay saldhigyo iyo waliba ay isku kala gooshayaan gebi ahaanba gobolada ay ka kooban tahay dawlad deegaanka Soomaalida waxayna bilaabeen in gebi ahaanba ay ku sameeyaan jirdil iyo qaar ay xabsiga u taxaabaan dadka shacabka ah ee arrimahaasi ka mudaharaadayay ama sida weyn uga hor yimid waxaan la ogyahay Itoobiya in mowqifkeeda uu yahay qabsashada dhulka Soomaaliyeed iyo waliba in ay markaasi si babacan ay u sheegtaan dhul badan oo Soomaalida ay leedahay qoomiyadda haatan madaxda ka ama taliska ka haysta Itoobiya waa Oromiya ayaa waxay ku haysataa Soomaalida dhul aad u badan kaasi oo horaan Soomaalidu ay lahayd balse Oromadu ay doonaysay in ay ka farmaroojiso dagaalo ba'an ayay kula jirtay Oromada dhowrkii sano ee la soo dhaafay Soomaali galbeed ama nadahne iyada oo ciidamada liyu booliska oo gebi ahaanba sida jeeshka uga adeega halkaasi ay markaasi hilfaha u qaadeen Oromiya oo doonaysay in ay ku qaataan dhul Soomaali leedahay si xooga dhanka kale Canfarta ayaa iyaduna kamid ahayd qoomiyadaha sida weyn ugu soo duulay dhulka Soomaali galbeed ay leedahay kaasi oo ay doonayeen in ay qaataan maadaama dhulka Soomaali galbeed uu yahay dhul xoolahana u fiican dhul beereedna ah halka dhulka kale qoomiyadaha kale ku nool yihiin uu yahay dhul qaraara ama markaasi buuraley ah oo aysan jirin dhul beereed iyo dhul deexeed markaasi u roon dhaqanka xoolaha iyo waliba tacbashada beeraha ninka haatan dawladda horkacaya waa Abiy Ahmed oo markaasina mowqifkiisu yahay in dhulka Soomaaliyeed uu si maaragtay babcan ugu sharciyeeyo dadkiisa ama uu uga faa'iideeyo inta xilkaba uu joogo ayaa waxa uu bilaabay hubka dhigis ciidan isagoo oo waliba la dagaalamayo axmaarada iyo Soomaalida waxaana xooga uu saaraya Soomaalida sidii markaasi loo carbin lahaa iyada oo ciidamada militariga uu amray in cidii ka hor timaada ay ku sameeyaan awood takrifal markaasina ay xabsiga u taxaabaan arrimahaasi oo dhan ayaa waxa ay leeyihiin dadka siyaasadda geeska faaleeya in ay salka ku hayaan kadib markii Abiy Ahmed loo diiday inta looyin markaasi ugu magac daray dadkii u soo halgamay Itoobiya oo markaasi Soomaaliya dagaalkii 77kii lagu laayay buurta Karamardha dhaladeeda in ay halkaasi taalooyin uga samayso xukuumadda Abiy Ahmed waxaana ka diiday arrinkaasi madaxweynaha haatan xilka haya ee Soomaali galbeed Mustafa Cagjar oo arrinkaasi gabi ahaanba gaashaan
baarlamaanka u daruuray oo si weyn ugu ammaaneen dadka rayidka ah walow uu u dabcay ama si fudud uu uga yeelay in ciidamada liyu booliska lagu sameeyo hubka dhigis toos ah. taasi ayaa u sahli doonta ayay leeyihiin in wixii la doono laga sameeyo dadka shacabka ah ee ku dhaqan dowlad deegaanka ama dadka siyaasadda haatan magac ku sheega ah ee u fadhiya Soomaalida xilalka u haya. wasiiro ayaa horkacaya ayaa la leeyahay arrimahaasi oo dhan oo doonaya in iyagu ay projectiyo gaar ah ama shakhsiyan ay doonayaan in ay kaga fushadaan Abiy Ahmed si ay ugu ansixiyaan arrimahaasi.